faashado gadafooyin dhacayo waayaha gardaadsho waqtiga gunaanaday anna waxaan gudiyayo midkaan soo gudbinayo gooni isu taagani waa go'aan dadweyno gees laga mara jirin taladan gorfeeyo inaan gaadho faashado gadafooyin dhacayo waayaha gardaadsho waqtiga gunaanaday anna waxaan gudiyayo midkaan soo gudbinayo gooni isu taagani waa go'aan dadweyno gees laga mara jirin الله الرحمن الرحيم إلهي بقى محضله maanta halkan isku keenay dhamaanteen mahadda labaad waxa le madaxweynaha Djibouti iyo shacabka Djibouti iyo dalka Djibouti oo sodolkii sanadood ee Soomaali burbursanayd inta la daba joogay aqli waxtar iyo dareenka walaaltinimo sodonkaas sano tanatium bay kamid tahay ilaahay ka jazaaysiin doona inagii shirkeena maanta qof wada af Soomaali ku hadlaaba meel kasta ha jooga shirkan lug buu ku leeyahay professor geelchire mid beer qodaya mid dooni saaran qof walba waa faalaynaya shirka wala soo eegaya waxa la naga rabaa wax dhibaatadii jirtay wax ka xalin kara inuu ka gaadho aragti way kala duwan yihiin laakiin halkan waxa la isugu yeeray halkan loo yimid dad khilaafsan oo kala fog in ay gaaraan xal ay isku afkartaan dad saaxiibo la isugu yeeray dad kala fog baa la isugu yeeray oo la doonayo dantuna ku khasbayso waqtiguna ku khasbayo inay si waaqici ah oo run ah u helaan xarakooda gaaraan taas ayna saaran qof waliba hadadaalo hadalkana runta haddii aan laga sheegin murug buu galaa run la isu sheego wixii la tabanaya si adag laga wada hadlo wixii la wada goostay ee lagu heshiiyana run laga dhigo hal rubay taas baa la naga soo soconaa xagga yaga waxaan halkan lamid run wixii dhibaato aan u aragn aan sheegno wixii dan inoo wada ma hadanta Soomaaliya qoys maanta Soomaaliya maxaa u dana qodobka u dana ee ka fursan weynayna waan la nimid walaaladayna waxaan u sheegaynaa si walaaltinimo ah iyaguna waa soo kale waxaan diyaarnahay inaan dhageysano ra'yiga naga duwan kaayiga ka fog inaan dhageysano oo dulqaadkeeda yeelo oo rogrogdawaan u nim idinkana saayis lagban ka doonaynaa shalay arintu waxay ahayd madaxweynayaashii waa shiray oo hadlay oo dhageysanay mas'uuliyadii waan soo wareejin guddiga wasaaradda loo soo wareejiyay anaa tilmaantayda waan nidhi halka war hal la wada heshiiyo war wax la isla afkarto waa dhamayn maanta waxa la soo eegayaa guddida farsamo ee halkan ku hadhay inay keento technical war maxay noo dar khasab maaha in maanta wax walba la soo afkarta waxa weeye talaabooyin jiraan maanta la isla afkaran kara maxaa inoo halkee ugu fudud ku heshiin karaa maxaa ugu dhow ku wada heshiin karayna maxaa adag أنا وحلي رضا معي إلى حالي ما ناكل الصيحة محان طول قاضنا هل كانوا كيقولنا محان كونتربيوشن محان كتر شركة إنه بوليستو أولو بوليسنو آد بان صوتهم آد بان وهذا وحنوضنا ورب شركة يا أمد إن السوق سام حال بوليسن كنا أنت يمكن السوق ولا يشين كنا أنت واعدك محل قاض كنا مركا إذا كانوا واحد ردينا لبدون باتين بيلا تهاي تحل بعد سارة مات
waxaa ummadda dhowreysanayso dee halkaan idinkaan joogan halkaan wadi fadhina isaa iyo ilaahay idinkii tala wanaagsan tala suuban halkana waa meel iska barakaysanoo in badan baa guulagu gaadhaa dee anugu intaasaa naga dardaarana waana mahadsantiin